haddana waxaanu jeclaysanay inaan idiin soo gudbino taariikh nololeedkii Mustafa Maxamed Macalim gaashalan sare ahna duuliye sare Mustafa Maxamed Macalim waxa uu ku dhashay magaalada Muqdisho ee dalka Soomaaliya taariikhdu markay ahayd 25 Maarso 1943 wuxuuna ku barbaaray magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooy 1960 ayuu wuxuu dhameystay waxbarashadiisii Collegio Magistrale kadibna wuxuu ka mid noqday duuliyaashii ugu horeeyay ee loo qaatay ciidanka cirka Soomaaliyeed isagoo sanadku markuu ahaa 1961 halkaas ka mid ahaa duuliyaashii marka loo diray dalka Misr kadibna uu aaday waxbarashadiisii Academia Almara iyo Florence ee wadankaas midowga Sovietiga isagoo soo bartay diyaaradaha dagaalka ee loo yaqaan MiG-15 iyo MiG-17 isla markaasna ku soo laabtay dalkiisa hooyo ee Soomaaliya isagoo ah tababare MiG-15 iyo MiG-17 sanadku markuu ahaa 1969 wuxuu waxbarasho u aaday dalka Talyaaniga halkaas oo uu ku soo bartay diyaaradda loo yaqaan DC-3 ama Dakota tababarkan wuxuu ku soo dhameystay Scuola Avanzato Base Elica oo ku taala magaalada Latina ee dalkaas Talyaaniga sanadku markuu ahaa 1972 waxaa loo diray dalka midowga Sovietiga halkaas oo ku soo bartay diyaaradda bomber Il-28 1973 waxaa loo magacaabay taliyaha raxanta bomberka kadibna halkaas oo loogu magacaabay taliyaha ciidanka cirka ee gobolka Waqooyi Galbeed 1974 waxaa loo magacaabay taliyaha tababarka ee ciidamada cirka hoggaanka guud sanadku markuu ahaa 1975 waxaa loo diray waxbarasho dalka midowga Sovietiga halkaas oo ku baranayay akademiga culunta dagaalgelinta ee cosmonaut ee magaaladaas Kiev wadankaas Ukraine hadda loo yaqaan halkaas oo ku soo bartay Master of Military of Arts ee habka dagaalgelinta iyo hogaaminta ciidamada cirka dhulka iyo waliba badda halkaas oo ku soo dhameystay waxbarashadiisii sanadku markuu ahaa 1977 isla sanadkaas ayuu wuxuu ka qayb qaatay hogaamintii raxanta bomberka dagaalkii xoreynta gobolkaas Soomaali Galbeed sanadku markuu ahaa 1977 ilaa 78 wuxuu jagooyin ka soo qabtay goobo kala duwan ee ciidamada cirka Soomaaliyeed sanadku markuu ahaa 1977 ilaa 78 wuxuu jagooyin ka soo qabtay goobo kala duwan ee ciidamada cirka Soomaaliyeed Balidoogle gobolka Waqooyi Galbeed Berbera iyo waliba Hargeysa sanadku markuu ahaa 1979 waxaa loo wareejiyay shirkadda diyaaradaha ee Somali Airlines codsi ka yimid madaxtooyada dalka halkaas oo ku bilaabay duulimaadka diyaaradaha Fokker F-27 isagoo markaa lagu qaatay duuliye sare kadib sanadkii markuu ahaa 1982 wuxuu waxbarasho u aaday dalka Mareykanka gobolka Texas isagoo wax ka bartay American Air Academy halkaas oo uu bartay diyaaradaha rakaabka Boeing 787 wuxuuna ka qaatay FAA shahaadooyinka sare ee dhinaca duulimaadka ee loo yaqaan TABLA Airline Transport Pilot License sanadku markuu ahaa 1988 wuxuu waxbarasho u tagay dalka Faransiiska magaaladaas Toulouse halkaas oo uu ka soo qaatay tababarka duulista diyaaradaha Airbus A300 iyo A310 wuxuuna ku duulay nooca diyaaradahaas laga bilaabay sanadkii 1988 ilaa 1991